waxaan aaminsanahay in dhammaanteen aan xasuusanno in waxa ugu badan ee loo dhinto dhaawaca kadib ha ahaado maxaa la lahaa xabad ha ahaado maxaa la lahaa any other injury qarax injury kaleeto oo qofka goobtii waxa ka dhaceen ugu dhimanaayo inay tahay dhiigbax marka dhiigbaxa sidee lagu yareyn karaa hadalkayga intaas u socdaa maxaase ka qaban karaa dhaawacyada iyo dhibaatooyinka dhan in general waxaa lagu soo koobaa in preventionka ay yareyn karto 50% mortality waa haddii la helo afartaas shay waxaa ka mid ah education in dadkii trauma systemka ka shaqayn lahaa bulshadii dhibaatada ku jirtay ee dhibka la kulmi lahayd iyo health systemkii dhammaan la baro waxyaabihii lagu yareyn lahaa dhibaatada qaybaha kale saddexda kale haddii ay fiirisid waa waxyaabo khuseeyo national level oo annaga si individuals ama health professionals roolka aan ku yeelanayno uu yaryahay tusaale environmental modification in wadooyinkii haddii aanay in si fiican loo dhiso in dadkii sharcigii la baro in sharcigii lagu dhaqangeliyo in maxaa la dhahaa trafikii wadooyinkii nidaamkooda dhismihii habkii oo dabka iyo safetygii waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo la xiriiro policy iyo maxaa la dhahaa authoritiska oo dowladda iyo hay-adaha maamulka annaga rol waa ku leenahay inaan mas-uuliyaddii shaksiga qaadano markaan gaari wadno marka xarunta aan ka shaqaynayno marka guriga aan joogno marka wax kasta aan samaynayno individual responsibilitieskeena noo weydiyo laakiin waxaan isleeyahay ka caafimaad ahaan qof kasta nurse ha noqdo dhakhtar ha noqdo public health ha noqdo qof kastoo xirfad la caafimaaday wuu ka qayb qaadan karaa dhimashada waxa keena oo ah dhiigbaxa asiga oo samaynayo in asigana uu barto dadkana uu baro waxyaabihii dhimashada oo yareynayo maraykanka markii ay ku badatay iskuullada la gelayo oo la xabadaynayo oo ilmaha yaryarka ah ay ku jiraan qaraxyadii oo ugu horreeyey oo meelaha la weerarayo sida kii Boston Marathon iyo iskuullada kaleetana ay dhaceenna waxaa shiray dhammaan ururadii oo traumada ha noqoto American College of Surgery committeegiisa traumada ha noqdo ururadii kaleeto ee general surgeryga critical care-ka traumadii anesthesia kulli waa la isku yimid waxaa la dhahay war dadkan haddii isbitaalkii iyo trauma center advance la geeyo waa la badbaadin karaa ilaa xad laakiin ambalaaskii 10 daqiiqo ay u soo socotay ay qofkii dhiigbax meesha ugu dhimanaa maxaa xal dadkan qaraxii zoobe qaraxyada markasta dhacayo xabadda maalin kasta la isku dilaayo midida ciyaal weerada waxaasoo dhan waxay u dhimanayaan dhiigbax marka qofkan intuusan dhiig bixin uusan dhiigbaxaas u dhiman isbitaalkii ama ambalaastii inay u imaado average waa 10 ilaa 15 daqiiqo Soomaaliya waa qiyaasi kartaa waddamadii hore u maraaday 10 ilaa 15 daqiiqo tahay Soomaaliya 10 ilaa 15 daqiiqo qofka intay ku soo dhacayso inuu waco ama in uu ambalaastii xataa darawalkii la isku toosiyo systemku waa dareemi kartaa culays ku jireen waa la fikiray waxaa la sameeyey koorso oo bulshada dhammaan la baraayo in dhiig joojin la sameeyo waxaana ujeedkeedu uu yahay qofka meesha joogo inuu noqdo qofka koowaad ee qofkaas caawinayo tusaale ahaan aniga doctorka daan soo joogno oo aniga wax ugu dhacay qofka koowaad ee aan sugayo inuu caawiyo ambalaasa iyo tiimka imaan doona maahan ee asiga waaye asiga waxa loo tababaraa inuu noqdo